kusoo dhawaada kanaalkeena Cabdishakuur kanaal iyo bloggeena Muxtarif oo si toos ah idinkaga soo gudbin doono xalqad aad sugeyseen oo ku saabsan registering a website-keenu sameynay ama bloggeenu sameynay sida loo register gareeyo. markaad website-kaagii waxaan adeenayda soo xasuusiyo bloggeenu sameynay muxtariftest.blogspot.com buu ahaa inagoo wax course ah aynaan saan idinku ballan qaaday aynaan soo marin marka laga reebo editing oo in yar ahayd waana fadligii Ilaahay hadii course-kaas aynu ka badbaadnay. muxtariftest.blogspot.com waanigi maalin horena ku sheegay waa subdomain baa la yaraa, waa domain ku dhex jira, marka blogspot.com buu ku jira subdomain baa la yaraa. domainka dhameyska tiran waa muxtariftest.com. taamicneedu maaha website-kaaga website maaha, website uu yahay sax waa kan sidiisii oo kale uu qoray, sidiisii oo kale uu sameeyay wax wuxuu qabanaya function ku qabanaya kale uu qabanaya, laakiin kaliya waxa ka gudban subdomain maaha domain maaha waa subdomain. marka subdomain-ka uga gudubto domain u iibsato aynu kaga hadli doonaa. marka intayna u gelin sidaad u iibsan lahayd waxa jirta horta markaad website domain-kiisa iibsanayso waa inaad haysataa Visa card ama Mastercard wax la yiraahdo. marka Visa card iyo Mastercard inta badan anigu ma ogi meelaha Soomaalidu degtay ee Afrikada waliba gaar ahaan Soomaaliya, Somaliland iyo Puntland iyo meelahan xataa Djibouti in laga helayo umaleynayo Visa card iyo Mastercard. hadii laga helno wadi la soo socodsiin doonta aniga. marka Visa card iyo Mastercard ayaad marka koowaad u baahantay. Visa card lacagtiisu ma badna ilaa $10 sameyntiisu marka laakiin wadankii ayaan lagu iibinayn. marka Visa card-ka hadii aad hesho wuxuu ka caawinayaa number buu leeyahay, lacag baad ku kaydsanaysaa oo charge gareynaysaa. waxa filayaa Hargeysa waa lagu charge gareeyaa, lacagta waa lagu shubaa dadka ATM-yada iyo waxan iyadoo la isticmaalayo. balse markaad charge gareyso ayaad hadhow markaad wax iibsanayso lacagtii oo kale tusaale xawaaladii wada la tagtay igu shub battery card-kayga $10 bay kugu shubtay, card-kaagii marka $10 baa kugu jira. markaad xagan wax ka iibsanayso waxa ku suura gelinayaan website-yada wax laga iibsadaa in uu ku yiraahdo code-ka ama numberka card-kaaga uu leeyahay ee sirta xaga hoose ka qoran, numberkaas ku qor halkan ayuu ka oranayaa si aad iiga iibsato. kadib iyaga automatically waxay kala baxayaan qiimihii ay ka siinayeen. mata tusaale domain-kan saad aragto waxa la inaga siinayaa 4.99 ay la inaga siinayaa 8 domains 8 domain oo 8 domain marka la waxa weeyaan .net .com wax kale .tv .org waxyaabo saas oo kale ah waa domainskaas ay laga iibinayaan. marka 4.99 ay automatically kala baxayaan Visa card-kaaga. marka Visa card wuxuu baa yara dhib badan saad imika ku heli lahayd, balse inta badan dibadda laga dirsadaa, dadka qofku dibadda uga dirsadaa uu yaray soo sameey kadibna email buu kula xiriiraa ama warqad buu ku sii qoraa waxyaabaha uu doonayo magaciisa oo kale in loogu sameeyo website-kiisa oo kale oo sameysan doono oo iibsan doono oo kale waxyaabo saa information simple ah laga qoray ciwaan Gmail oo laga soo xiriiro qofka. marka inta marka laga helo Visa card wada haysataa. Visa card hadaba markaad soo hesho ay domain iibsanaysaa. marka imika kan waa subdomain. marka hadii platform-yada kale blog bayna ku sameeyay platform-yada kale hadii aad ku sameyso waliba computer-kaaga aad ku sameyso waxa la isticmaalaa local host ayaa la isticmaalaa wax la yiraahdo local host subdomain la yiraahdo local host. marka kaasi waa subdomain ma aha domain ba maaha laakiin waa domain yar oo iska local host ah computer-kaaga ku jira. kaas oo kale markaad bedelaysaa hadaba magacii website-kaaga aad u bixinaysay baad halkan gelinaysaa. marka waan idinka ilaaway GoDaddy ayaa la yiraahdaa website-kan oo website register gareeya website-dada. marka wuxuu ku ogolaanayaa waa shirkad company ku ogolaanaya in uu ku register gareeyo website. marka waxa kala jira registering website la register gareeyo la diiwaan geliyo iyo hosting oo martigelinta hosting-ka xalqadan bay kaga hadlaynaa sabab jirta awgeed. marka waxaan ka hadlayaa marka registering domain-ka markaad iibsanayso. طبعا domain-ka iyo hosting-ka meel baa laga wada iibsadaa oo fiican shirkad hosting-ka intaad ka qaadato kadib domain-ka bilaash ay kugu siiso ayaa fiican. marka domain-ka faa'iidada uu leeyahay oo subdomain-ku aanu lahayn waa maxay? waxaad isticmaalaysaa ciwaan professional aad isticmaalaysaa. sidoo kale sababtoo markaad muxtariftest.com isticmaasho iyo markaad muxtariftest.blogspot.com isticmaalayso way kala duwan yihiin. marka waa professional buu weegi aad buu qurux badan una fiican yahay waanu wuxuu uga fiican yahay ka kale aadna uga qurux badan una fiican yahay. sidoo kale email-ka aad isticmaalayso oo kale aad buu professional u yahay waana mid
in la isku halayn karayo oo shirkadaha kale oo dhan waxa jira website markaad wax ka qaadanayso ama wax weydiinayso kala coordinates kuma ka halayn karayo reliable method marka kan markaad isticmaalayso waa reliable more reliable aad baa la isku ka halaynaya sababtoo waxaad isticmaalaysaa ciwaanka website-kaaga lacag baad bixisay marka wax kasta samayso waa lagu heli karayaa marka wuxuu professional ku yahay ciwaankaad samaysanayso kala magacaagii baa ku jira tusaalaan muxtarif test website-kayga leeyahay waxaan la baxayaa Cabdishakuur ciwaankayga halkan qori lahaa muxtarif@gmail.com oo kale ayaan waxaan laysiinayaa shirkadu siinaysaa ciwaan ah in cabdishakuur@muxtariftest ayaa laysiinaya.com @muxtariftest.com ama magaca doonta maxamed@muxtariftest.com oo kale iyo website-kaaga iyo isla socda marka waa more professional aad buu qurux badan waa ciwaanka qof kasta doonayo waxaad aragtaa ciwaana info@ waxaas oo kale ama info@muxtariftest.com oo kale saas kale kuwa ciwaan more professional sidoo kale webkaaga hostingka marka uu helo aad buu u dheereyn doonaa sidoo kale search engine optimizer-kiisa oo kale ayaa fiicnaan doona marka website-kaaguna dadkuna waxay ka helayaan kalsooni buuxda website-kaaga ku qaadayaan sababta blogiska waxyaabo badan baa laga sameeyaa blogga marka uu subdomain qaabkan oo kale yahay dhib badan baa laga sameynayaa oo qofkii wuxuu doono sameyn karayaa wuxuu doono xadi karayaa haakin buu kaga dhaxli karayaa wuxuu doono sameyn karayaa dib ay keenaysaa marka more security waad helaysaa sidoo kale waxa lagu siinayaa control bana wax la yiraahdo marka hosting aad qaato marka hosting iskuma dhaxgelino ee domain-kan ayaan sharxaynaa domain-kan ka haysanayso website-kaaga magacaad u bixinaysaa baad halkan ka baaraysaa imka tusaalaan muxtarif test miyuu jiraa baad leedahay muxtarif test mise waa domain aan iibsan karo muxtariftest.com iyo baad leedahay search domain sidaad aragto haddii domain gaar aan u iibsanayo si gaar ah baa laga iibinayaa laakiin hostingka haddii aan ku iibsanayo hostingka lacagta hostingka martigelinta ah oo iyada xalqada dambe ku qaadan doonaaye hostingka in lacagteeda marka laga qaado ciwaanka waxa lagu siinaya blash baa lagu siinaya maana muxtariftest.com iminka wuxuu leeyahay yes your domain buu yiri domain-kan is available waad heli kartaa buy it iibso before some else does intaanu qof kale iibso marka muxtariftest.com waan iibsan karaa marka ciwaanka webkayga waan bedeli karaa waxa aan ka dhigan karaa muxtariftest.com waa ciwaanka lagu soo gali doono lagu baari doono waxa laga siinayaa 2.99 la qiimo hore $14 buu ahaa imika waa 2.99 hadii select aan yira qaabkii weenu iibsanayay ayaa laga siinaya sidoo kale waxa lagu yiri get free and save 81% waxa la yiri saddex kale la hel macnaha kan adoo iibsaday saddex kale la iga sii iibso oo $10 bixi $10 markaad bixiso waxa laga yaabaa sanadle inaad u bixiso ama monthly aad u bixiso additional waa years waka saaka ka muuqdo waa sanadle marka sanad kasta lacagta waxaad bixinaysaa inta $10 waa sanadkii $10 bixinaysaa hadii saddexda ciwaan isku iibsata hadii hal ciwaan adeegsatana waa $2 waa $2 oo kaarkaaga kala baxaysa sanadkii registeringu daawo qiimo dhimistiisa iyo su'aadka u jaban yahay hadii aan yara select kan ii soo hel oo ii select garay oo mid baa leeso kaartiga leegali kaartiga salada yar la jiido lagu rito marka shopping samaysanayso kale inagu badan shopping kama samaysano baahan ku guranaa laakiin salada yar baa jirto lagu jirto kaart la yiraahdo san markaad aragto wuxuu ku bilaabay step 1 privacy wuxuu leeyahay what will you do with your domain name kaaga maxaad ku qabanaysaa oo kale ay koray protect my personal information information kaaga aan ku alaan prevent your personal information from filing ka ilaali oo macnaha in lacag dheeraad ah kugu daraya hadii aad leedahay aniga ii ilaali oo macnaha hackers-ka iga ilaali waxa jirta qofku isaga is ilaalin kara markuu website leeyahay website-kiisa isaga mas'uul ka noqon kara ilaalin kara ama shirkadan uu dhiibanaya uu leeyahay oo waxay leedahay in rag professionals oo aad security-ga u provide garayo ku siinay security marka ragaas oo kale ay ku bixinayaan lacagta si kordhaysa markasta marka barrier no thanks baan oran karaya ama waxaan oran karaya lacagta aan bixiye qiimaha aan bixiye in ilaaliyo website-ka step 2 waxa leeyahay website builder hosting miyaan kugu sameeyaa
hostingka xalqada dambe sharxi doona isaga marka qaabka stabiski baad u baxaysaa aakhirkan waxa ku weydiinaya kaarkaagii in waxaan filayaa registering website-ka ama domain saa loo iibsanayo inaan kuu soo yaro dhaweeyay GoDaddy oo kaliya ta maaha waxa jira more websites baa jira boqolaal website laakiin kuwa ugu caansan ayaa GoDaddy ku jira adiga si baarbaari doona waxaan filayaa imika fikirkii just inaan kuu soo yaro dhaweeyay fikirka saa loo iibsanayo kaliya waxa ka maqan Visa card ama Mastercard intaan ku kulmi doona xalqada tan xigta ee hostingka ku saabsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. laakiin